Soo dhawaada film American horror ah waxaana la yiraahdaa Scream waxaana la sii daayay 2022 daawo oo taxadar hana iloobin aad la garayso muuqaalka si aan u soo galno muuqaalo noocan oo kale mahadsanid filimkeenu wuxuu ku bilaabmayaa gabar lagu magacaabo Tara oo kaligeed ku sugan guriga isla waqtiga waxay fariin u diraysaa saaxiibadeed Amber daqiiqado yar kadib taleefan line ayaa la soo wacay laakiin Tara ayaa diiday inay ka qabato sababta waa lambar aan la garanayn taleefanka mar kale ayuu soo dhacay iyadoo ka jawaabisa markan nin ayaa isku sheegay inuu yahay Charlie wuxuuna sheeganayaa inuu yahay saaxiibta hooyadeed isagoo la hadlaya ayuu ka cabsiinayaa oo u sheegaya wax cabsiya oo uu weydiiyay haddii ay cabsatay wuxuu u sheegayaa filim dilaagu uu qof ka takhalusay iyagoo ciyaaraya geemka dibna uu ka takhalusay kadib Tara ayuu ku casuumay si ay uga soo qayb gasho geemka laakiin iyadoo uga jawaabin ay intii argagaxday ku jartay taleefanka si degdeg ah ayayna isaga saartay kadib markay heshay fariin ka timid Amber waxaana ku amrisay inay ka qabato taleefan line-ka Tara ayaa aad u yaabtay sababta oo ma sheegin in la soo wacayo Tara qoraal u qortay Amber si uu ogaato dhab ahaantii inay iyada tahay waxaana loogu jawaabay maya waxayna garwaaqsaday in la sheekaysanayso gacan ku dhiiglaha ayaa dhowr su'aalood ka weydiiyay geemka ama ay u maqan tahay saaxiibadeed Amber iyadoo aan jeclayn taleefanka kaga jawaabto dhowr su'aalood ay si sax uga jawaabtay balse waxay ku guuldareystay inay ka jawaabto su'aashii u dambeysay taasoo keentay in gacan ku dhiigluhu ugu hanjabo inuu dilo saaxiibadeed Tara ayaa kadib u dhaqaaqday Amber iyadoo qaadatay mindi sabab badbaadisay saaxiibadeed isla markaa albaabka furtay gacan ku dhiigle ayaa ka soo horbaxay isagoo maaskara laga cabsaday xidhan kadib mindi ayuu caloosh kaga saray si kastaba ahaatee Tara waxay ku guuleysatay inay xidho albaabada dhan isla markiiba waxay wacday askartii markaa ku soo socotay si kastaba ahaatee gacan ku dhiigle ayaa mar kale soo galay guriga bilaabay inuu weerar ku qaado dhowr jeer ayuu mindi ku dhuftay balse way laagtay isagoo dhul ku jiidaya albaabka weyn ayuu boolisku soo gaadhay isla markiiba muuqaalka xiga waxaan aragnaa Tara walaasheeda ka weyn oo lagu magacaabo Sam waxay ka shaqaysaa meel ka baxsan magaalada waxay la nooshay saaxiibkeeda oo lagu magacaabo Reggie isla markiiba waxay fariin ka heshay walaasheed Tara sidoo kale Tara saaxiibkeeda Wes ayaa ku wargeliyay weerarka dhacay dhanka kale Tara saxaabteeda ayaa ka hadlaya weerarka dhacay waxaa sidoo kale su'aalo weydiisay Judy oo ah askariyad Tara saaxiibkeedii hore oo lagu magacaabo Fincy kadib dhammaantood waxay aadeen si ay u booqdaan Tara waxayna u wada dhaqaaqeen isbitaalka dhanka kale Sam iyo Reggie ayaa go'aansaday inay booqdaan Tara dib Reggie oo ka sheekeynaya gacan ku dhiiglaha kadib wuxuu sheegay inuu film ku arkay nin xidhan maaskara la mid ah dadka aaminsan inay hayaan dhaxalka ayna fududeyn in la dilo wejiga ruuxaanta oo dadka dilaya lamana ogaan karo waqti ay kusoo weeraraan dhowr daqiiqadood kadib waxay yimaadeen isbitaalka Tarana aad ayay ku faraxday inay aragto ayaga Tara kadib waxay u soo bandhigtay Sam Chad Mindiwes inay baxaan iyo Amber afar ka mid ah asxaabteeda kadib dhammaantoodba way baxeen marka laga reebo Sam Tara ayaa oohin bilowday oo muujisay cabsida ay ka qabto gacan ku dhiiglaha waxayna ka cabsi qabtaa inuu mar kale soo weeraro Tara saxaabteeda waxay ku wada sugan yihiin baarka Fincy ayaa yimid oo u yeedhay Liv si uu la baxo Chad uu hanaaqimo ku arkay isagoo u yeedhaya Liv markuu mulkiilaha baarku arkay inay dagaalamayaan wuxuu ku amray inay bannaanka u baxaan intaa kadib Fincy wuxuu go'aansaday inuu bannaanka u baxo laakiin gaadhi ayaa si lama filaan ah loogu hordamiyey wuxuu soo dhawaaday gaadhiga balse wuxuu waayay qof u damiyey matoorka isla markiiba gacan ku dhiigle ayaa gadaal kaga yimid oo qoorta ka geliyay mindi muuqaalka xiga Sam ku sugan musqusha isbitaalka oo qaadanaysa kiniini aabaheed Billy Loomis ayay muraayada ku sawiratay isla mar ahaantana gacan ku dhiigle ayaa gadaal kaga soo weeraray si kastaba ahaatee waxa u suurta gashay inay ka carato waxayna u dhawaatay askartii ku sugnayd isbitaalka askarigii ayaa galay qolka nasashada balse gacan ku dhiigle ayaa baxsaday intaa kadib Sam waxay ku soo laabatay Tara waxayna u sharxay sababta in muddo u arkin Sam ayaa shaaca ka qaaday inay yihiin walaalo aysan isku aaba ahayn waxayna sheegaysaa inuu aabaheed yahay Billy Loomis uu hadda ka hor gacan ku dhiigluhu dilay sababta isugu xirnaayna waa sababta uu aabahood uga tagay Tara aad u naxday kadib markay maqashay waxaas oo dhan waxayna u sheegtay inay tahay walaasheeda ka weyn aad ayay u niyad jabtay kadib Sam way ka raali gelisay waxaa sidoo kale yimid isbitaalka Reggie Samna waxay ka codsatay inay soo afjaraan xiriirkooda kastaba haatee Reggie wuxuu ku adkaystay inuu la sii joogo maalinta xigta Sam iyo Reggie waxay la kulmeen in lagu magacaabo Dawey Reedy oo u muuqda khabiir waxay ka codsadeen inay 5 daqiiqo wada hadlaan intaa kadib waxa uga sheekaysay dhacdadii oo dhan intaa kadib Dawey wuxuu ku wargeliyay shuruucda looga badbaado mindida oo ku jirta xitaa inaan la aamini karin qof aad jeceshahay ayna u badan tahay inuu gacan ku dhiigluhu yahay qof ku dhow intaa kadib waxay ka codsadeen inuu caawiyo laakiin wuu diiday isagoo ku andacoonaya in mar hore la tooriyay 9 jeer kadib markay ka tageen Dawey wuxuu wacay saaxiibtii oo lagu magacaabo Sydney wuxuuna uga digay dilaaga wuxuu sidoo kale qoraal u diray xaaskiisii hore oo lagu magacaabo Jail intaa kadib waxay ka wada tashanayaan si ay uga hortagi lahaayeen gacan ku dhiiglaha Sam aabaheed Billy Loomis uu ahaa dilaaga asalka ah fikir badan kadib Dawey wuxuu go'aansaday ugu dambeyn inuu caawiyo Sam qorigiisa ayuuna soo dhaqaaqay oo uu cabeeyay Sam Reggie Dawey waxay soo booqdeen Chad gurigiisa Dawey wuxuu qof walba uga sheekaynayaa waayii hore iyo Billy Loomis xiriirkii ka dhaxayn jiray waxa kale oo ka hadlayeen xiriirka Sam iyo gacan ku dhiiglaha mindi waxay cabirtaa fikirkeeda iyadoo ku andacoonaysa gacan ku dhiigluhu isku dayo inuu sameeyo horudhac qof kastaan wuxuu bilaabay inuu midba kale ka shakiyo Sam ayaa ugu dambeyntii lagu eedeeyay wax kasta aad ayay uga niyad jabtay wayna ka tagtay iyadoo gaarigay ka haysatay intay jidka sii socotay waxay muraayada ku sawirataa aabaheed Billy Loomis wuxuuna u sheegay inay la dagaalanto gacan ku dhiiglaha sababta soo socota ayay Judy maqashay shanqar guriga ah
waxayna u baxday si ay u baarto iyadoo gacanta ku haysata mindi, balse waxay heshay wiilkeeda Wes oo hadda kusoo laabtay guriga. Kadibna guriga ayay ka baxday si ay Wes casho ugu keento. Hadda Wes keligii ayaa kusoo hadhay guriga. Keligeed intay jidka sii socotay waxaa soo wacay gacan ku dhiiglaha. Gacan ku dhiigle oo u sheegay inuu indhaha ku hayo Wes. Judy oo argagaxsan ayaa soo jeedisay gaarigeedii guriga. Waxay sidoo kale wacday booliska. Isla markay Judy ka soo baxday gaariga waxay u carartay guriga. Gacan ku dhiigle ayaa si lama filaan uga soo horbaxay. Marar badan ayuu mindi ku dhuftay ugu dambeynna dhulka ayuu dhigay. Intaa kadib markuu ka soo baxay qubeyska wuxuu arkay albaabka weyn oo furan. Markuu isku dayay inuu xidho wuxuu arkay gacan ku dhiiglihii. Wuxuuna isku dayay inuu iska difaaco gacan ku dhiiglaha. Wuu weeraray ugu dambeynna dhuunta ayuu ka geliyay mindidii. Sidoo kale Wesna halka ayaa lagu dilay. Dawey iyo Sam ayaa yimid goobta falku ka dhacay, balse booliska ayaa u diiday inay gudaha u galaan. Intaa kadib Jill ayaa kasoo degtay baabuurka wararka, waxayna u soo dhawaatay Sam si ay uga hesho wargelin. Jill ayaa isla markiiba aragtay Dawey aad ayayna ugu faraxday, maadaama ugu dambeysay muddo aad u dheer. Sam ayaa aragtay askarigii isbitaalka ee ahayd inuu isha ku hayo Tara. Isla markiiba waxay ku baraarugtay in walaasheed ay halis ku jirto, waxayna u carartay isbitaalka iyadoo Daweyna uu soo raacay. Dhanka kale ayaan Tara ku aragnay iyadoo daawanaysa TV-ga isbitaalka, waxayna maqashaa shanqadh qof ku dhawaaqaya erey caawimo, balse qofna uma jawaabin. Tara ayaa argagaxday, waxayna fuushay kursiga curyaanka weyna dhaqaaqday. miiska soo dhaweynta ayay ku war heshay askari dhintay, iyadoo aad u naxsan ayay ku dhuumatay qol u dhowaa. waxayna wacday booliska, isla markaana Ridge ayaa soo galay, laakiin Tara ayaa si khaldan u weerartay Ridge. Marka ayuu u sheegay inay Sam ugu yeedhay halkan, isla markiiba gacan ku dhiigle ayaa gadaal kaga yimid, isagoo ku dhuftay Ridge. Tara ayaa isku dayday inay baxsato, waxayna u halgamaysaa si ay uga baxsato gacan ku dhiiglaha, laakiin gacan ku dhiigle ayaa wacay Sam isagoo dhaqaajinaya. Sam waxaa qasab ku noqotay inay kala doorato Tara iyo Ridge. Sam waxay ka baraysaa gacan ku dhiiglaha inuun dilin, balse waxay u muuqataa inay waqti qaadanayso. wax yar kadib goobta ayay soo gaadheen. Daweyne wuxuu isku dayay inuu toogto, u baxsaday gacan ku dhiigle, halka Tara iyo Ridge-na ay badbaadeen, balse gacan ku dhiigle ayaa mar kale weeraray Dawey. Markan Dawey ayaa ka hor yimid gacan ku dhiigle oo toogtay 5 jeer. Intaa kadib dhammaantood waxay kusoo laabteen wiishka, laga reebo Dawey oo ku sugnaa si uu ugu dhammeeyo gacan ku dhiiglaha. Wuxuu si lama filaan ah u qabtay gacan ku dhiiglihii. Intaa kadib gacan ku dhiigle ayaa mashquuliya, isagoo ka faa'iidaysanaya taa ayuu mindi geliyaa. Ugu dambeynna halka ayaa lagu dilay Dawey. Jill ayaa ka maqasha warka, waxayna timaadaa isbitaalka. way barooratay markay aragtay Dawey oo aan naf lahayn. wax yar ka bacdi Sydney ayaa soo gaadhay, waxayna bilowday inay u qalbi qaboojiso saaxiibadeed, Tara oo sidoo kale cafisay Sam. labadooduna waxay go'aansadeen inay ka baxaan magaalada si ay uga fogaadaan wax walba. Sydney ayaa kusoo wajahan waqti ay sii baxayeen, waxayna ku wargelisay inay dilaan gacan ku dhiiglaha meel walba daba taagan. Sam way diiday, kadib way baxeen si ay u tagaan. kadib markay baxeen, Sydney waxay ku wargelisay Jill, kadib waxa u sheegtay inay ka walwalin, sababtoo ah waxay ku rakibtay qalab gaadhiga gudihiisa. kadib saddexdoodaba ka baxeen magaalada, laakiin Tara ayaa weyday dawadeedii naqaska ee muhiimka u ahaa. marka ayay dib u xasuustay inay dawo kale u taalo guriga Amber. kadib waxay go'aansadeen inay booqdaan Amber ka hor intaysan ka bixin magaalada. dhanka kale, Amber ayaa ku tuuranaysa xaflad guriga, hoos ayay u dhaadhacday si ay u soo qaadato khamri, laakiin Mindy ayaa uga digtay inay keligeed tagto halkaa, sababtoo ah gacan ku dhiiglu ah mid aan dabacsanaan lahayn. waxay rabtaa inay Chad la saaxiibto oo ay ku casuumto dabaqa sare, balse Chad ayaa ka diiday, sababtoo ah wuxuu uga shakiyay inay tahay dhab ahaantii gacan ku dhiiglaha. taasina waxay keentay inay aad uga cadhooto oo ay iska baxdo. muddo kadib, Chad waxaa loo soo diray qoraal oo lagu sheegay inuu kula kulmo meel gaar ah. kadib Chad wuxuu raacaa goobtii loo soo tilmaamay, laakiin cidna ugumuun tegin. dabeed wuxuu go'aansaday inuu soo laabto, laakiin gacan ku dhiigle ayaa ka soo baxay meel aan laga filayn. lugta ayuuna kaga dhuftay mindi Chad, kadibna wuxuu damcay inuu baxsado, balse gacan ku dhiigle ayaa qabtay oo dhowr jeer ku dhuftay mindi, isagoo halkaa kusoo afjaray. dhanka kale, Sam, Tara iyo Ridge waxay soo gaadheen guriga Amber si ay uga soo qaataan dawadii naqaska. markay yimaadeen, Amber waxay joojisay xafladii. If waxay kusoo laabatay mid ka mid a qolalka. Mindy ayaa ka shakiday sababtoo ah Chad ayay raadinaysay. Sydney iyo Jill ayaa sidoo kale daba socda Sam, wayna la yaabeen markay arkeen halkay istaageen, waxayna garwaaqsadeen in goobtu ay tahay meeshuu ka dhacay dilku mar hore. Sydney ayaa si degdeg u wacday Sam, waxayna ka codsatay inay sida ugu dhaqsiyaha badan ka soo baxaan goobta. muuqaalka xigay, Mindy oo daawanaysa filim, balse gacan ku dhiigle ayaa gadaal kaga yimid oo bilaabay inuu weerar ku qaado. Sam ayaa maqasha buuqa, ugu dambeynna badbaadisa. wax yar kadibna Amber iyo Tara ayaa soo gaadhay, balse Amber ayaa ku eedeysay Ridge inuu yahay gacan ku dhiiglaha. Ridge ayaa soo muuqday isagoo sheegay inuu ku jiro dhismaha hoose. Liv ayaa timid isla waqtiga, iyadoo gacmeedu ka buuxo dhiig. kadib dhammaantood waxay ku eedeeyeen inay tahay gacan ku dhiiglaha, balse way inkirtay. arrin naxdin leh ayaa dhacday. Amber ayaa toogatay Liv oo daaha ka qaaday inay tahay gacan ku dhiiglaha. aad ayay uga argagaxeen dhacdadan. qof walbaana wuxuu bilaabay inuu ka cararo. Ridge wuxuu u jiiday Sam dabaqa hoose, wuxuuna ku eedeeyay Tara inay tahay gacan ku dhiiglaha kale. Sam ka bacdi waxay ka aamin baxday Tara. dhanka kale, Jill iyo Sydney oo qoryahooga u diyaarsan, labadooduna waxay damceen inay gudaha galaan. Amber ayaana iska dhigtay in lasoo tooriyeeyay, isla markii waxay isku dayday inay soo toogato Jill ayayna la haleeshay xabadii.
gudaha ayna ku laabatay inkastoo ay jeel dhaawacan tahay. Waxayna ku amartay Sydney inay gudaha gashay Amber disho. Markay cabbaar raadinaysay Sam ayaa ugu dambeyntii heshay walaasheed, iyadoo ku xidhan mid ka mid ah qolalka. Laakiin way ka warwareegtay inay ka furto xadhigga iyadoo ka cabsanaysa. Kadib Sydney ayaa soo gashay gudaha oo bilowday inay raadiso gacan ku dhiiglaha. Iyadoo raadinaysa ayuu gacan ku dhiigluhu soo wacay, wuxuuna u sheegay inuu yahay gacan ku dhiiglaha labaad. Kastaba haatee Sydney dheg jalaq uma siin, oo waxay bilowday inay ka toogato albaab kasta. Kadib xabaddu waxay ka haleeshay lugta Ridge, gadaasheeda ayuuna ku dhuumanayaa, wuuna isa soo dhiibay isagoo dhaawaca. Si lama filaan ayuu soo weeraray gacan ku dhiiglihii Sydney, taasoo keentay in labaduba ay ka dhacaan dabaqa hoose. Ridge ayaa hoos u soo degay si uu u qaato qoriga, halka Sydney ay la dagaalamayso gacan ku dhiiglaha. Isla markiiba waxaa qoriga qabsaday Sam, oo marka waxay qarka u saarantahay inay disho gacan ku dhiiglaha. Ridge ayaa si lama filaan ah ugu dhuftay mindi, taasina waxay daaha ka qaaday inuu yahay dilaaga labaad. Wuxuu u sheegay Sam inuu yahay dilaaga labaad oo iska siibay maskarada, wuxuuna u sheegay Sam inuu aad u jecel yahay mindida. Wuxuu rabaa inuu sii wado dhaxalka goobta soo socota. Amber waxay aadaysaa Tara si ay dhammaantood u disho. Kastaba haatee Amber markay soo gaadhay qolkii, waxay qolka ka weyday Tara. Kadib Tara ayaa si lama filaan ah u soo weerartay. Sam ayaa ka faa'iidaysatay xaaladda oo carartay. Kadib markay qaniintay Ridge, kadib markay soo laabatay Amber waxay la kulantay Sydney iyo Jael. Waxay isku dayeen inay iska difaacaan, dadaal badan kadib waxay ku dhufteen xabad. Si lama filaan ay ugu dhacday shawladda waxayna bilowday inay gubato. Amber ayaana halkaa ku gubatay. Dhanka kale Sam oo la dagaalamaysa Ridge waxay heshay aragti aabaheed oo muraayadda ah. Wuxuu u toosiyaa mindida sababtuna dhiiranaanteedii oo cusboonaatay. Waxay qaadatay mindida oo ay ku dishay Ridge. Sydney ayaana timid oo u sheegtay haddii ayna madaxa ka togan uu dib u soo laaban lahaa. Taasina waxay keentay inay Sam toogato iyadoon ka labalabayn. Amber ayaana soo laabatay laakiin Tara ayaa ka toogatay madaxa, halka ayaana lagu dilay gacan ku dhiiglayaashii. Muuqaalka ugu dambeeya ayaan aragnaa dadkii badbaaday oo loo qaaday isbitaalka. Samna waxay u mahadcelinaysaa Jael iyo Sydney, waxayna markaa u ballan qaadaysaa inaynan ka tegin iyaga. Ha iloobin inaad like garayso muuqaalka. Muuqaalkeenu intaa ayuu ku egyahay. Waa inoo muuqaalka xiga. Maca salaama.